السلام عليكم وإذن سلامة أصحابتي قادقة ميلو البو جوجتان وحاني وضع مانتا شاكات حكمة أولا أدنى أقهلي دونتان wiil ayaa aabihii wuxuu ku yiri aabba waxaan soo arkay gabar aad u qurux badan waxay leedahay indho aad u qurux badan joog iyo jamaalna waa loo dhameystiray waxaan rabaa inaa ii doonto gabadhaas oo aan guursado aabihii ayaa yiri waa kuu doonaya hadiiba maanta aad soo heshay gabar ku qanciso balse marka hore gabadha aan arko aabihii markii gabadhii la tusay wuxuu yiri wiilkaygiiyow uma qalantid gabadhan waayo waxay u baahan tahay qof waaye araga sideedoo kale wiilkii oo la yaaban damaca aabihii ayaa ku adkaystay inuu asaga gabadha guursanayo muran iyo dagaal kadib waxaa lagu heshiiyey in la aado saldhigga booliska si loo kala saaro labadooda taliyihii booliska markii loo sheegay arinta ee isku haystaan wiilkii aabihii wuxuu yiri itusa gabadha marka hore gabadhii markii la tusay ayuu yiri gabadhan uma qalantaan labadiina waxay u baahan tahay qof sharaf leh sideeda oo kale mar kale ayaa dagaal meeshii lagu galay saddexdii nin waxay uga dhigteen duqa magaalada markii loo sheegay arintan asigana wuxuu yiri gabadha halay tuso gabadhii markuu indhaha saaray ayuu yiri gabadhan waxaa u qalmo qof mas'uul ah sida aniga oo kale arintii markaan waxay gaartay wiilka boqorka ah oo aad looga dambeeyo afartoodii ayuuna isugu yeeray si uu u xaliyo dhibka dhexdooda ka jiro balse markii gabadhii la arkay ayuu isbedelay wuxuuna yiri nimankii kale yaa idin yiri gabadhan haweysta aniga oo joogo halkii ayaa madaxa la isla galay markii oo dagaal adag ka dhexdhacay shantii nin ugu dambeyntii gabadhii ayaa tiri aniga ayaan kala saarayo waan ordayaa shantiina qafka ugu horeeya ee soo qabta ayaa guursanaya sidii ayaana lagu heshiiyey gabadhii quruxda badneed way orday shantii ninna waa ay ka dab carareen ayagoo go'aan gaarin kadibna waxay ku dhaceen god weyn gabadhii intay u soo noqotay ayay kor istaagtay godkii ay ku jireen waxayna tiri ma taqaantaan qofka aan ahay waxay dhaheen maya waxaan ahay adduunyo dadku way iga daba cararaan waxayna rabaan inay aniga i gaaraan ay igu loolamaan oo mid walba aniga i doonayo waxayna iloobeen inaan ahay mid waqtigeeda gaaban yahay isla markaana aysan jirin cid i daba cararta oo iga gaarta guul ilaa ugu dambeyntii ay ku dhacaan god iyaga oo aan weli i helin marka asxaabay waxaan filayaa inaad ka heli doontaan sheekadan insha Allah asxaabtii hore ila joogta aad ayaa umahadsantihiin asxaabta cusub waxaan leeyahay soo dhawaada like share comment subscribe waa xaqiina wixii tale iyo tusaale waa ila wadaagi kartiin asxaabay like free waaye like fara badan halee saaro waana mahadsantihiin dhamaantiin waxaan iga tagay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu